wasaaradda cadaaladda Puntland waxay maanta soo bandhigtay xeerka ciqaabta kufsiga kaasi oo ay u soo bandhigtay qaybaha kala gedisan ee bulshada sida ay wax ugu dari lahaayeen ama ay wax uga reebi lahaayeen xeerkan ee draftiga ay soo diyaarisay wasaaraddu. kulankii lagu soo bandhigay ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiirka cadaaladda ee maamulka Jubbaland iyo wasiirka cadaaladda ee maamulka Galmudug kuwaas oo iyagu qayb ka ahaa shirkani, waxaana ay sheegeen in ay sharcigani loo baahan yahay xubnihii ka soo qaybgalay inay si fiican uga fiirsadaan isla markaana uu ahaan doono xeerka loo gudbin doono golaha baarlamaanka. dambiga kufsiga ma ahan dambi ka dhaxeeya gabadha la kufsaday ee ninka kufsaday, sidoo kale ma ahan mid ka dhaxeeya reerka gabadha laga kufsaday iyo reerka uu ka dhashay ninka dugaagga ah. waa dambi ka dhaxeeya dambiilaha iyo isteedka. reeraha la kufsaday markhaati way, gabadhooda la kufsaday markhaati way. taa inaan ogaano way. gabar la kufsaday ma caafin karo nabadoonka reerkeeda, aabaheedna ma caafin karo, reerkooduna ma xeeran karaan. agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Maxamed Cali Faarax oo isaguna goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in xeerkani uu yahay mid ay muhiimadda saarayso wasaaradda cadaaladdu ay muddana ka shaqaynaysay qaybaha kala gedisan ee bulshada ay maanta u soo bandhigayaanna loo baahan yahay inay si weyn uga fiirsadaan. waxa ku yimaado waxaana nafaraya dastuurka dowladda Puntland maadaama intaas oo aynu haysano ayaa marka waajibaadku wuxuu noqday inaanu qabanno qorshe loo wada dhan yahay la isla og yahay wasaaraddu aysan garab ku sidanin, wasaarado badan ay joogaan, hay'ado badan ay joogaan, cid badan ay ka shaqeeyaan si waxa kale u ahaado dukumenti Puntland leedahay, Puntland ku shaqeynayso, Puntland ay rabto dadkeeda inay ku badbaadiso, cid allaale cid ka caawinaysa markaas. ma aha qorshaha kan kaliya inaan leenahay hay'adaha caalamiga ah naga caawiyeen, beesha caalamka naga caawiso. ma aha waxa weeye qorshahani waa qorshe dawladeed weeye, dawladda Puntland ruuxeeda ayaa contribute gareynaysa. marka waxaan rabnaa wixii aan haylo oo dhan in qorshaha kan lagu fariisiyo oo ku shaqeeyo. ujeedada guud ee isugu yimid maanta waa inta anagu bini aadam baan nahay, waa diyaarinay. Maxamed Saciid Yuusuf, Ariel TV, Garowe.